bismillaahi raxmaan raxiim daawadayaal iminka waxaan la joognaa wasiir cabdiwaaxid cabdiraxmaan oo ka mid ah tiro wasiira oo ku sugan gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. wasiir kusoo dhawo telefishinka RTN. waad mahadsantahay kiisa adiga iyo TV-ga RTN. iminka laascaanood baad joogtaa xilligii ololaha iyadoo la gaadhin baa tiro wasiira ah oo fara badan laascaanood yimaadeen. markaa socdaalkeenu muxuu daarnaa? socdaalkaygu wuxuu daarnanaa sidaad ka warhayseen dalka diiwaangelintiibaa hore uga dhacday sanadkii hore, kadibna waxaa bishii dhoweetay aynu soo dhaafnay gobolada sool iyo sanaag laga furay dadkii isdiiwaangeliyey inay kaararkooda qaataan. marka dadka inaanu ku dhiirigelinno inay kaararka qaataan, wacyigelinno, ka shaqayno gobolka sool iyo deegaamada kale la xidhiidhaba ayaanu u nimi. wafdiga waxaan ka mid ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo wasiiradii faraha badnaa ee gobolka yimi. waad ogeydeen dee xisaabtu dhan baa halkan timi. marka hawshaasaanu u nimi. ilaahay mahadiina si nabada ayay noogu soo dhammaatay. hawshaasaa ugu muhiimsaneed waxaan gobolka u nimi. waayahay komishinku laascaanood uu ka bilaamay, gobolka guud ahaan uu ka bilaamay, haddana uu soo afdhammaaday. marka balqaabkeebuu ku dhammaaday, balqaabkeebuu ku biloomay? si nabad uu ku bilaabmay, alxamdulilah. si nabadana uu ku dhammaaday. dadkuna si wanaagsan bay kaararka u qaateen. waqti dhowr ilaa 10 cisho ilaa 30 cisho bay gobolka guud ahaan ka socotay. marka degmooyinka iyo tuulooyinka iyo caasimadda laascaanoodba si qiimo leh runtii oo aad u weyn ayay dadku kaararkoodii u qaateen. gobolada sool iyo sanaagna waxaan is leenahay insha allah meelaha ugu horeeya kaar qaadashada ka mid yihiin. waayahay waxaa jirta oo soo laalaabata oo dhacda komishinku markuu bilaabmo in falal amni darraa ay ka dhacaan deegaanada sool ku hareeraysan oo kale. maxaad arrintaa ka ogtay? sidaynu ka warhaynay wax weyn oo gobolka ka dhacay ma jirto. hal meel baa la isku dayey, iyadana ciidamadii baa ka hortegey. marka si guud ahaan nabada ayay gobolka uguna bilaabantay, kaarqaybintu uguna dhammaatay alxamdulilah. waayahay marka komishinka laga yimaado adigu xisbiga kulmiyaad ka tirsan tahay oo hadda aad laascaanood ka joogta, ifaalan nooceeya ayaa kulmiye haddii uu soo baxo laga filan karaa? xisbiga kulmiye waa xisbi gaamuray oo weyn oo xisbiyada dalka ugu horeeya laga furay ka mid ah. doorashooyinkii lasoo qabtay ee dalku soo marayna mar walba kaalmaha hore ayuu ka geleeyey doorasho walba. waa xisbi kalsoonida ummadda in badan oo ka mid ah haysta. gobolka soolna dee waxbaa naga soo horreeyey, iskamaanaan socon. xisbiga waxaa ka soo horreeyey inuu nabadda ka shaqeeyey, dib u heshiisiinta ka shaqeeyey, bulshada dhex galay, horumarin weyn oo gobolka sool maanta mashaariic waaweyn ilaa tuulooyin, degmooyin, magaalada gudaheeda oo aan la dafari karin, oo aan isleeyahay waa waxa ugu muhiimsanee dadku xisbiga kulmiye ku doorbidayaan. ayuu arkaan inuu yahay xisbiga horumarka. marka waxaan rajaynaynaa insha allahu niyadda aanu ku nimi iyo dadku siday noo qaabileen ee aan yuhuuntooda ka aragnay inaan cod weyn gobolka sool ka helaan rajaynayna insha allah. okay, aad baad u mahadsan tahay wasiir. komishinka qaranka ee Soomaaliland dhowr jeer xisbiyada kulmiye iyo wadani wuxuu ku eedeeyay in ay xeerarkii komishinka ay jabiyeen oo gobolada bari ay ka bilaabeen kaambeyn xilli aan kaambeyn ahayn. marka arrintiinu kaambeyn miyay? xisbiyadu mar walba way ololeyn karaan, laakiin waxaa laga hadlayay inaan la isdhexgelin kaar qaadashada iyo ololaha. si wanaag dee imika way naga soo xidhantayba, waxay ahaydba intaasina way jirtay. xisbiyaduna waxay ku heshiiyeen baa jiray. laakiin qodobka xaqiiqda waxa weeye marka loo tegayo taageerayaashaada gobolada iyo degmooyinka ku nool, iyagaanba kugu samayn oo sharcigii iyo waxaad moodaa inaan kaaba aqbalin, inaan lagu soo dhaweyn, aan la ololayn. marka madaxda xisbiyada waxaan isleeyahay mar walba waxaa khasbayay dadkay u tegayaan oo aan ogolaanayn oo aan aqbalayn inay iska soo galaan ama aan wax walaa dhicin. marka taasaa keenaysay in xisbiyaduna dee kolley ay ku khasbanaadaan waxay dadkooda doonayaan. aad u mahadsan tahay. haddii aan u soo laabano siyaasadda gobolka ka taagan, awal siyaasadda deegaanku maysan sal fadhiyin. iminka waxaad moodaa in la isbedelay oo deegaanku aad isku bedelay. maxaad is leedahay baa kalifi karaya? waxaan is leeyahay dhowr qodobba unbaa u sababa. waxyaabo badan oo markii hore la islahaa waxbaa weyn baa ka imanayo. aad moodo sidii dadku rajooyinkii ay ka qabeen inaanay wada helin, hadday tahay khaatumo ama puntland ama dowladda federaalka oo kale. dadka rajooyinkoodii baad moodaa inay si uun
uga soo yaraatay oo waxyaabo waaweyn oo laga filayey ay dee dadku niyaddii markii hore iyo wixii laga filayey aan sidii la doonaya aanay noqon. Qodobka kale muhiimka waxa weeye dowladda Somaliland oo dadka nabadoodii ka shaqaysay wada hadallo siyaasiya oo runtii la galay oo la furay oo cid ama qof ashkhaas ha ahaato ama group ha ahaato cid kasta wax tabanaysay xukuumadda oo gobol nabadeed u furisay oo magaalooyin badan wada hadallada laga galay iminkan aad ogtiin Khaatumo in wada hadal lagu jiro. Qodobada kale muhiimka ah waa isbeddelka horumarka ee deegaamada ka hirgalay oo dadku ay xaqiiqsadeen intii Soomaaliya dawlad ahaydba ilaa iyo 60kii dawladihii kala duwanaaye soo maray inay dawladda Somaliland noqotay xukuumadda kulmiye waliba dawlad dadka iyo dalka waxqabad ula diyaara horumarka hirgelisay oo ka samaysay. Marka waxaan isleeyahay qodobadaas oo la isku daray ayaa sababay dadka niyadoodii iyo maxaan ku rahdaa doonistoodiiba inay wax iska bedelaan oo ay u arkaan in Somaliland lafteeda wax lala qaybsan karayo oo sidii markii hore dadku waxyaabo badan oo isbedela siyaasiya iyo kuwa nabadeed iyo kuwa bulshada ay deegaamada ka dhaceen. aad u mahadsantahay arinta wada hadallada Khaatumo hadeen ku soo laabano in badan bay soo laabteen ilaa dhowr jeer baa wada hadalladu Hargeysa ka furmeen ilaa iyo haddana ma soo afjarmeen. maxaa kalifiya isleedahay inay jiitaan maalin ba sii socdaan wada hadallada marka la gelayo maalin iyo laba iyo saddexba kuma dhamaadaan marba maar baa la qaadaa. wada hadalladu waxay maraan tallaabooyin iyo steps bay qaadaan kuwaasuun baana lagu jiray processkaas socday marba meel la tagay Djibouti Addis Ababa Hargeysa waxa ugu dambeeyay in gudiyo la saaray aynaba filayo inay dhaqso ugu kulmi doonaan ilaa maanta berito. waxaan isleenahay insha Allah waan rajaynaynaa in aakhirka wax lagu heshiis yahay ay ka soo baxaan qodobada fara badan oo la isku raacayna way jiraan oo aad u fara badan oo laga midaysan yahay. waxa dhimanna waxaan rajaynaynaa insha Allah inta xukuumadeedani cimrigeeda ka hadhay ay waqtiga u hadhay dhowrka bilood soo socda inay dhamaadaan wixii dambe hadduu kulmiye soo baxana cid kasta oo wada hadal diyaar u ah waan wadanaa ama Khaatumada haddii wada hadalka dhimaan wada ha ahaato ama garaadada ismada kale maanta deegaanka ka maqan ba ha ahaatee anagu mar walba waxaanu diyaar u nahay in wada hadal iyo safgarad siyaasiya tabashooyinka iyo waxa la kala tirsanayaba ay ku dhamaadaan insha Allah. waxa jirtay shirkii Burca oo horay loo qabtay shirka loo ballamay Burca lagu qabto shirkii nasiib darra ma qabsoomin waliba dhanka Somaliland ayuu ka dib dhacay. Khaatumana watay ku hanjabteen ka bixi doonto wada hadallada haddaan shirka la qaban meel loo dhakan shirka caynamana halkii kaas mar buu sii maray mara way kala duwan yihiin. shirka Burcode waxa ka horeeyay gogol xaad waxa ka horeeyay maxaa lagu qabanayaa sidee loo qabanayaa ayaa ka soo qayb galaya iyo shirka wadaya oo hogaaminaya waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha gudiyada la saaray ay aynaba kaga wada hadlayaan. laakiin si wanaag qodobada badan baa ka horeeyay maanta madaxda Khaatumo Hargeysa joogan awal ma iman jirin isbedel weyn baa dhacay way sii maraan way joogaan. waxaan rajaynayaa marka gudiyada labada dhinac la saaray inay hawsha soo kufiyaan oo wax lagu midaysan yahay ama shirka Burca ha ahaato ama heshiis kama dambays ha ahaato oo Somaliland iyo Jamhuuriyadda Somaliland iyo Khaatumo ay gaaraan. marka waxaan isleeyahay maanta wadadii saxda ahayd baa la hayaa isbedelkaasina dalka guud ahaan ka dhacayna insha Allah waxaan sheegnaa inuu dhamaystirmo. aad ma santahay hadii deegaanka muddo 7 sano ah oo hadda kulmiye ka talinay gaar ahaan goboladan joogay maxaad oran kartaa isbedel uu ka qabtay magaalada? isbedelku waa ka bajaajta maanta raasacad lagu dhex wato keenay laamiyada ah awal deewad ogeedeeno isbedel la sheego oo horumar dalka ka muudin gobolka Sool anagu waxaan ugu nimi guryaha qaar Ingiriisku ka tagay iyo qaar siyaad bare ka tagay maamuladii mar Puntland joogtay wax aan hadda xusuusanahay laga qabtay ma jiraan isku soo wada xoori
gobolka isbeddelka 7 sano ee xukuumadda kulmiye jirtay wax weyn oo ka horeeyay oo aan sheegi karnaaba ma jiraan marka laga rabo dhismayaal yar yar tusaale ahaan hal secondary baa ka jiray gobolka Sool Muuse Yuusuf nugaal guri kiraaba ku jiray maantana iskuulada gobolka laga hirgeliyay ilaa tuulooyin maanta magaalada aan iskuul laga dhisin ma jiro degmo aan secondary lahayna ma jirto isbitaal ha ahaato waxbarashada jaamacadda aad aragteen inta la egtahay xukuumadana dhistay isbitaalka dhowrka milyan ku baxayaan boardinka laamiyada xaafad walba maanta laamiyadu gelayo ilaa 15 kilomitir kalena soo socdaan insha Allah biyihii magaalada Baaris baa lagu wadaa sarfii xoog la socday ilaa imika lama helin laakiin waa lagu tala jiraa ceelal badan baa laga qoday caafimaadka degmo aan MCH lahayn maanta gobolka ma joogto maanta barasaabkan oo hadalnay qolahayada u timi waxa la waayay degmooyinka MCH-da laga sameeyaa kuwa kalena rug caafimaad baa laga sameeyaa tuulooyinka kale waxa la waayay degmooyinka magacaaban kamid ah oo MCH laga hirgeliyay hay'adihii waayeen dhinac walba runtii oo ay u tahayba arrimaha bulshada ku taxalluqa waxa aan qarsoonayn oo muuqdo weyn ayay xukuumaddu ka hirgelisay waana isbeddelka keentay aan rajaynayno xisbiguna ku soo noqdo ku guuleysto dadkuna ay taageeraan waa haddii aan u soo laabano xisbiga kulmiye laftirkiisa marka aad eegto saasaanta shacabka keebaad leedahay soo baxaya labada xisbiga wadani iyo kulmiye waxaan u malaynayaa magaaladeennu wada joognaa horta gobolka Soolaadba dareenkiisa wada haysaa dadku annaga wayna soo tijaabiyeen wayna arkeen waxayna arkeen inaan nahay xisbi bulshadiisa ku dhex jira horumarka ka shaqeynaya bulshada la dareena sida muuqata bari iyo galbeed maanta waxaan rajaynaynaa ama muuqataba inaanu mar labaad talada dalka qaban doono insha Allah oo xisbiga kulmiyeed dib u haaneedin doono annagoo waxaa nala ku doortay insha Allah oo inala ka rajaynayna si xoojin doono wadi doona marka kulli waa doorasho tartan baa la gelayaa xisbiga tartamaya campaign iyo olole weyn baa la gelayaa annagoo aan iska oranayn waan guuleysanaynaa haddana tabaabushaheeda iyo diyaar garowgeeda waanu leenahay rajaduna way muuqataa in xisbigu mar labaad soo noqonayo insha Allah aad iyo aad buu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa wasiir Cabdiwaaxid oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka RTN mahadsan yahay